ragga adduunka ugu taajirsan oo ku tartamaya sidii ay u maalgelin lahaayeen cilmi baaris ku saabsan qaabka looga hortagi lahaa gabowga ama duqnimada oo loo joojin lahaa dhimashada oo cimriga bini'aadamka loo dheereyn lahaa. Subxaanallah, ma oga miyaa gaaladu in Allah subxaanahu wa tacaala uu gacanta ku hayo geerida iyo nolosha. Maskax sinaaci ah. Saddex, waxa ay khubaradu ku shaqaynayaan sidii qofka bini'aadamka ah maskaxdiisa loogu shubi lahaa wax kasta oo waxbarasho ah, waxbarashadaas oo waqti dheer ka qaadan lahayd. Beddelkeeda maskaxdiisa ayaa lagu shubi doonaa wax kasta oo uu baahdo, una baahan doono inuu wax barto. Daawada muuqaalkan haddii uu kusoo gaaro ha ilaawin inaad subscribe inoo saarto. Mahadsanid. Soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka adduunka. Maalqabeennada adduunka oo ku tartamayo sidii ay u joojin lahaayeen gabowga, cimriga bini'aadamkana loo dheereyn lahaa, ama ilaa iyo weligeed loo noolaan lahaa noloshaas oo u dhisan bilaa dhimasho, oo dhimashada oo idilba looga badbaadi lahaa. Khubaradu waxa ay sheegayaan haddii mashruucan lagu guuleysto in dadka hadda 50 jirka ah ay noqon doonaan kuwa ugu dambeeya ee dhiman doona noloshooda. Gaaladu ma oga miyaa in Allah subxaanahu wa tacaala uu gacanta ku hayo geerida iyo nolosha. Waxay noqon doontaa nolol khiyaali ah, ayaa noqon doonta dhijo dhamaato waxa ma jiraan. Radan ayaa iska indhatiraya awoodda Allah subxaanahu wa tacaala, taasoo ahayd konkan wax walba uu Allah awoodiisu gacanta ku hayo. Waxaa jira tartan adag oo maalqabeennada u dhexeeya, taasoo lagu tartamayo tiknoolajiyadda casriga ah. Xilli waxaa jirtay shirkad lagu magacaabi jiray Altos, iyadoo cusub lagu maalgeliyay $260 milyan ah si loo soo saaro khubarada ay u soo baaraan sida looga hortagi karo dhimashada loona yareyn lahaa gabowga. Sida ay damacsan yihiin khubaradani, waxaa la sheegay in ay damacsan yihiin qofka bini'aadamka inuu da'diisa gaaro. Ragga ugu hodansan adduunka uguna taajirsan oo ka mid yahay Jeff Bezos ayaa damacsan inay barnaamijkan maalgelin weyn ku sameeyaan si ay isugu soo ururiyaan khubarada adduunka ugu weyn. Waxa uuna yidhi dhimashada dhan waa in laga fogaadaa, arrintaasna waa mid inaga ina qusayso. Sidoo kale milkiilaha shirkadaha Facebook, WhatsApp iyo Instagram, Mark Zuckerberg oo ka mid ah raggan hawshan ku cad ayaa isaguna yidhi waxaan danaynayaa bini'aadamka, maxaa inoo sahlaya in qofka bini'aadamka uu noolaado muddo dheer. Daawadayaal, haddii muuqaalkan aad daawaday, waxaan kaa codsanaynaa inaad noo saaro subscribe si uu u soo gaaro muuqaalada cajiibka aan soo diyaarino. Mahadsanid.